maxkamadda sare ee Somaliland Yuusuf Ismaaciil Cali oo maalmihii u dambeeyay howlgallo shaqo oo ku taxalluqa dhageysi dacwadeed oo u badan dilal ka waday magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa maanta ku dhawaaqay xukunno kala duwan oo ku riday 4 eedeysane oo ku eedeysanaa kiisas dilala eedeysanayaashan iyo kala ahaa Faysal Cali Cabdi Aadan Ismaaciil Cali Faysal Axmed Cabdi iyo Mustafa Yuusuf Cismaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland oo dhageystay mid ka mid ah dacwadahan uu xukunka ka soo saaray ayaa gabagabadii ku dhawaaqay natiijada iyo xukunka waxaana uu laba ka mid ah oo kala ahaa Faysal Cali Cabdi iyo Aadan Ismaaciil Cali oo ku xukumay xukunno dil ah halka Faysal Axmed Cabdi ay maxkamadda sare ee Somaliland ay ku xukuntay magti marxuumka Rooble Faarax Bulaale oo dhan 106 bilood oo xadhig ah eedeysanaha ugu dambeeyay oo maxkamaddu dhageysatay dacwadiisa oo ahaa Mustafa Yuusuf Cismaan ayay maxkamaddu tashigu dhageysatay dacwadda rafcaankeedu hor yaalay maxkamadda sare taas oo ay go'aan u dirtay isla maanta waxay ku xukuntay dambiile Faysal Cali Cabdi ila Khadiija Mahdi 20 jir ah dil toogasho ah waxaana la farayaa taliyaha xabsiga in dambiilaha uu ku hayo xabsiga inta cidda xaqa u leeyahay dalbanayso fulinta qisaasta rafcaanaha maxkamaddan sarena waxa ay dil toogasho ah ku xukuntay Aadan Ismaaciil Cali ina Caasha Cali 20 jir ah kadib markii ay u cadaatay inuu si hotelagal ah qodheer ama faritaankiisa ah uu u dilay marxuum Cilmi Xasan Ciiraale maxkamadda sare waxa ay yiday xukunka maxkamadda gobolka Togdheer ismadiisu ahayd maxkamadda gobolka Togdheer 2012 2012 soo baxay 3 bishii